howlgal qorsheysan oo ay fulinayeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo maamulka degmada Waaberi ayaa laga fuliyay qaybo kamid ah wadooyinka mara degmadaasi iyadoo ujeedka howlgalkaasi uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga isla markaana lagu baadigoobayay kooxaha burcadka ah ee dhac u geysta hantida dadka shacabka ah. howlgalkani ayaa intuu socday waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Waaberi Mudane Sugaal Cali Ayaanle oo kula dardaarmayay ciidamada inay si wanaagsan u dhaqmaan bulshada. qaar kamid ah shacabka degmada ayaa bogaadiyay howlgaladan amniga quseeya oo ay fulinayaan ciidamada amniga. waayaan waxaa jirtay tuugo oo dadka mooto ka qaadanayo iyo bajaaj ku dhacayeen marka hadda waayaan alxamdulillah waa laga nastay muxuu ahaa ciidanka aad u shaqeynaya waa fiican yihiin marka alxamdulillah marka taliye oo noo imaaday oo degmada iyo gudoomiyii muxuu ahaa oo degmada Waaberi iyo gudoomiyii waaxda maajo olol soo dhawaada martida sharafta xaafadda noogu timid iyo madaxda iyo mas'uuliyiintaba waxay iga wareysateen xaafadan amnigeeda ma sha Allah xaafadan waa deganahay waa ilma noo degan reeraa noo degan maanta maalinka fiican ma laha sababtoo ah amniga haysanaa nabad baan haysanaa wax problem ah ha noqoto xaq xukuuma ha noqoto xaq maartay saqajaanimo ha noqoto xaq dhinac walbaba waxaan ka nahay ma sha Allah waa tuuga xageedana waa ka fiicannahay habeenkii horeba nala duubanayo waxna laga qaadanayo hadda laakiin waa xaaladu waa okay weeyaan waa alxamdulillah ilaa baan ku mahadsan. gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Mudane Sugaal Cali Ayaanle ayaa dhakiisa tilmaamay in maamulka degmada oo kaashanaya shacabka iyo ciidamada ammaanka ay joogteen doonaan howlgalada noocan oo kale ah si looga hortago khataraha amniga quseeya. run ahaantii natiijo fiican bay inoo sheegeen dad badan aan wareysanay guri aan u dul istaagnay waxaanu joognaa waaxdii maaj masaajidka Muuse Boqor oo run ahaantii meesha ugu badan ee aagiisa iyo hareerihiisa cawashada ka imaanaysa ah waan soo marnay. waxaan rabnaa inaan bulshada reer Waaberi u sheegno taliyaha saldhiga iyo dhammaan maamulka degmada oo dhan waxay heegan ugu jiraan inay ka jawaabaan cawashada iyo codsiga kaga imaanayo bulshadeeda. waxaa ilaahay mahadiisa in taliyaha saldhiga wax badan ka qabta isaga ciidankiisa roondo joogta lagu sameeyay ilaa hadeertaana laga mahdiyay joogsadeen wixii markaa laga cawanayay. waxaana loo sheegay inaysan ahayn dad markaa iska socdo soo gala laakiin bajaaj ama mootadan laba lugaaleeda ah oo faykonta loo yaqaano ayagoo socdo markaa tuugada ku qooleysan jireen. waxaan rabnaa inaan ku celino mar kale saldhiga iyo dhammaan bulshada haddaysan wada shaqaynin ma jiraysa wax markaa wax qabad gooni ah. bulshada wixii arkaan u soo gudbiyaan saldhiga iyo waaxda gudoomiyaha iyo dhammaan laamaha iyo tabeelayaasha intaba. waxaan ugu mahadcelinayaa taliyaha saldhiga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Waaberi gudoomiyaha waaxda maaj gudoomiyaha waaxda horseed iyo gudoomiyaha waaxda Oktoobar oo run ahaantii caawa barnaamijkan qayb weyn ka ahaa. waa mahadsantihiin mar kale waxaan leenahay maamulka degmada wuxuu u taagan yahay ilaalinta xasilinta iyo nabadeynta degmada.